kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Gaalkacyo guddiga nabadgelyada gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda nabadgelyada Gaalkacyo iyo waxyaabaha ka qabsama howlgallo muddooyinka u dambeeyay ciidamada ammaanku ay wadeen ayaa waxa ay sheegeen in howlahoodu meel fiican ay u marayaan Abshir Diina Cawaale wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha ayaa ciidamada ammaanka ugu baaqay inay xil iska saaraan sugidda ammaanka marka waxaan rajaynayaa ciidanka iyo taliska iyo saraakiisha ka shaqeysay aad baan ugu hambalyeeyaa waxaan rajaynayaa inay xil iska saaraan dadkooda iyo dalkooda mas'uuliyadda ay dadku hayaana aysan dhicin in xabad soo ka dhacaan in xabadaha la xadido weeyaan qofkii xabad ridaa ammaanka ayuu wax u dhibay waxaan rajaynayaa xalay iyo habeen hore wax xabada magaalada laga maqal Cabdullaahi Jaamac Kabweyne wasiirka maaliyadda ahna xubin ka tirsan guddiga nabadgelyada loo xilsaaray ayaa saxaafadda uga digay inay u gudbiyaan bulshada warar abuur kara qalaanqal inta laga gaarayo go'aanka maxkamadda ma jiro miidiyadu waxa laga doonayaa warbaahintu inay ka digtoonaato wixii shaqaaqa dhalin kara ama banaanbaxyo ha ahaato aan loo baahnayn ama ha ahaato ma garatay hadallo dadka isku direeya ama dadka dhexdiisa dhibaato dhigi kara arrintani fikirka siyaasadda in lagu kala duunaada wax mustaxiil ma aha mar haddii lagu kala duwan yahayna meel lagu kala baxay leedahay in la sii fidneeyo la sii inflaamgareeyo dacaayado iyo raadiyaasha laga sii daayo ma aha arrin habboon sidaasaan horta warbaahinta farayna kuwa wanaagsan oo runtii si wanaagsan hadda wax u maamulaan waa jiraan Robla Maxamed Home Cable TV Gaalkacyo